lagu sameeyaa inta baseefta kunta soddonkii bishii September aynu ka soo gudubnay ayaa waxa TV-ga Universal ka baxay stuudiyiisa magaalada caasimadda Xamar barnaamij looga hadlayay arrimaha dalka ka taagan oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka ay ka qayb galeen daadiyaha barnaamijkaas wuxuu ahaa Cawil Daahir Salaad waxaana bixista barnaamijka kadib ay noqotay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u yeerto wariye Cawil Daahir Salaad iyo waliba agaasimihii TV-ga Universal ee bariga Afrika taasoo dowladda federaalka Soomaaliya ay kadib amar ku bixisay in taleefanada gacanka qaadka laga damiyo kadibna xabsiga loo taxaabo inta kadib ayaa soo baxday in sidoo kale albaabada loo isku dhufto xarunta telefishinka Universal عاصمة مغرب الحمر sababihii xarunta TV-ga loo xoray waxaynu wax ka weydiinay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Ali Nuur Boodaaye wuxuu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka dalka wuxuuna sharaxayaa qaabka xariga telefishinka u dhacay ee sababaha uu ahaa waxyaabihii loo xoray iyo waliba fikrad ahaanta waxa uu ka aaminsan yahay in idaacad ama warbaahin howlgasho hawada si sharci aan ahayn laga saaro waa sida xildhibaanka uu sheegayo waxa kaaga filan hadda waxaan filayaa in wariyaasha dambiga loo haysto ama falalka oo iyaga lagu eedeynay ahayd laba xildhibaan oo isku fikir ka ah siyaasadda wadanka aadna u dhaliilaya mataqaanaa wajiga siyaasadda maanta ku socota aad u dhaliilsan iyo isagoo kaligiis ah ayaa iswareystay wariyaha waajibaadka saaran waxaa laga rabaa marka ay xaaladaas oo kale tahay isagoo inuu noqdo fikirkooda fikirka ka duwanaa meeshaas idaacadda ka baxay inuu asaga noqdo oo asaga su'aalo ku ah lid ku ah fikirka ay xildhibaanadu gadaa inuu asaga weydiiyay ma ahan wax dhigaha shacabka ku cusub in wariye dawladdu ay xorto ama warbaahin hawada ay ka saarto waa mid dawladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer ay sameysay oo wariyaasha xorriyadda hadalka lagu xadgudbo wasaaradda warfaafinta waa bartilmaameedka dawladda u qaabilsan dhanka warfaafinta ama hadalka waxayna wasaaraddu ku kala aragti doonaaday arinta la xiriirto xariga wariyaasha Universal iyo xarunta magaalada caasimadda Xamar wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu sheegay in dawladdu ay ka warqabtay maxkamadan la soo taagi doono wariyaasha ka tirsan telefishinka Universal iyadoo uu sheegay in baaritaano ay socdaan idaacadaasi idaacadihiin ay la mid tahay halka jooga maanta cid kastoo dambi gashana sharciga ma cafinayo horeyna waa looga digay arrimo badan baa yani ciidanka amniga uga digeen idaacadaasi wayna ka dhaga adeegaasi wuxuu u keenay marka inay media ka sii daayaan waxa ay rabaan mediaha wuxuu rabo ma sii deyn karo media waxa la rabaa markuu war sameeynayo ama dood sameeynayo doodaasi dhinac kale waa inay dad kale oo doodaas difaacay ay jiraan nidaamka media idinka iga badiya haddii dawladdu ay ku doodayso in wariyaasha qaldan yihiin waa maxay sababta sharciga loo keen leeyahay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo dalka dibadiisa ku maqnaa markii wariyaasha la xirayay dhowr jeerna sheegay in loo baahan yahay marka laamaha amniga wariyaasha ay xirayaan wasaaradda warfaafinta ay ku soo wargeliyaan wuxuu isna sheegayaa in muhiim ay tahay in baaritaan la sameeyo wuxuuna sheegay in agaasimayaasha qaybta wasaaradda warfaafinta ilaamaha amniga kulamo uu la soo qaadan doono dibna loo ogaan doono oo si qaab dastuureysan loo mari doono xariga wariyaasha oo xoriyadooda dib loo siin doono waa sida Maxamed Cabdi Xayir Maareey wasiirka warfaafinta uu warbaahinta u sheegay mar caasimadda Xamar uu soo gaaray tallaabooyinka ay qaadi karayaan ama munaasibka ku ah marka waa hubsanaynaa waxaanu ballan qaadaynaa wariyaasha xidhan inay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah inaan lagu xadgudbin ayaanu ballan qaadaynaa waxyaabaha dawladda federaalka Soomaaliya ay dhaliisha ku mutaysanta waxa kamid ah in agaasimihii telefishinka Universal ee bariga Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo waliba barnaamij soo saare Cawil Daahir Salaad tan iyo maalintii Jimcaha ay ku xiran yihiin magaalada caasimadda Xamar waxaan loo diiday in ay qabsadaan qareen daafaco oo u doodo sawirqaada iyo saxafi
هذا حبنا سما فليا شيء سميا لحن معان qaramada midoobe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka siyaasiyiin waxgarad qaybaha kala duwan bulshada suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa si wadajir u cambaareeyay xariga wariyaasha ka tirsan TV-ga Universal ee agaasimaha bariga Africa Universal TV iyo Awil Daar Salaad oo ilaa xilligan gacanta dawladda Soomaaliya ku jiro sababaha ay u xiran yihiin ilaa xilliga lama shaacin waxaa la ogsoon yahay kaliya in loo xiray barnaamij ka baxay telefishinka Universal oo ay ka qayb galayeen xubno ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay xuquuqda xorriyatul qowlka ama xorriyadda hadalka waxaana dastuurka qodobkiisa 18aad ku qoran in la qadariyo muwaadinka ama qofka xorriyadiisa